السلام عليكم. nolosha dunidan casriga ah iyo tiknoolajiyadaba waxa saldhig u ah internetka. Hadaba muuqaalkan waxaan ku falanqeynaynaa internetku sida uu u shaqeeyo. Muuqaalkan aad daawanayso si uu kuu soo gaaro waxa uu soo jaraa kumanaan meel isagoo ka imaanaya xarumaha keedka xogta ee Facebook ama YouTube. Hadba midkii aad ka daawanayso muuqaalka. Hadaba sidee kuu soo gaartaa xogtaas ka imaanaysa Google ama shirkadaha kale ee keediya xogaha? haddii aad ku fikirayso xogta internetku inay soo gaarto iyada oo soo maraysa satellite-ka, aragtidaasi ma ahan mid suurtagal ah, waayo satellite-ku waxa uu ka fog yahay xarunta ay ku keedsan tahay xogta 22,000 oo meel, taas oo ka dhigan si ay ku soo gaarto xogta aad ka dalbato internetka inay soo jarto masaafo ah 44,000 oo meel. taasina ma ahan mid suurtagal ah. aragtida saxda ah ayaa ah in xogta internetku ku soo gaarto iyada oo soo maraysa fiilooyin maar ah iskuna xiraya xarunta ay ku keedsan tahay xogta iyo aaladda aad ka isticmaalayso internetka. waxaad soo geli kartaa adigoo isticmaalaya wifi ama waxa loo yaqaan cellular data. laba goorba xogta waxaa data centerka ka soo qaadaya fiber optic cable, waliba xogtan oo ah signalo ilays ah waxayna taas u imaanaysaa routerka ku jira gurigaaga ama goobaha kale. kadib routerka ayaa signalka ilayska ah u bedelaya signal koronto ah, waxaana uu sidaas ugu xirmayaa aaladda aad ka isticmaalayso internetka. dhinaca kale, haddii aad internetka ka isticmaalayso cellular data, fiilada fiber optic waxay toos ugu xirmaysaa towerka shirkadda aad isticmaalayso sim cardkeeda. towerka ayaa xogta kugu soo gaarsiinaya qaab shucaac ah ama electromagnetic waves ah. tusaale ahaan, waxaad internetka ka baaraysaa xog mucayan ah. aan dhahno muuqaal ku jira YouTube-ka. sidaan hore u sheegnay, muuqaalada ku jira YouTube-ka waxay ku keedsan yihiin serverro yaala Google Data Center. qalab kasta oo ku xirmaya internetka sida laptopyada iyo telefoonada waxa uu leeyahay internet protocol number gaar u ah oo loo yaqaan IP address. si la mid ah, server kasta waxa uu leeyahay IP address u gaar ah. iyadoo laga faa'iideysanayo IP addresska uu leeyahay aaladaada, ayuu serverku u suurtagelaysaa inuu xogta aad dalbatay kuu soo gaarsiiyo si khaas ah. tusaale, waxaad doonaysaa inaad baarto google.com. Google waxa uu leeyahay IP addresskan, marka aad bay u adag tahay inaad mar walba xifdsanaato IP addresskan, waana sababta loo sameeyay domain name bedel ka noqonaya IP addresska sida Google, Facebook, Amazon iyo wixii la mid ah. halkan waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaan DNS oo isku bedelaya IP addresska iyo domain nameska. DNS waa bog ay ku qoran yihiin domain nameka iyo addresskiisa. marka aad geliso domain name, wuxuu si automatic ah ugu bedelayaa IP addresska. sidaas ayaadna kaga helaysaa xogtii aad dalbatay iyada oo lagu soo marinayo fiber optic cables. fiilada fiber optic waxaa ku dahaaran qalbacyo aad u xoogan oo ka difaacaya fiilada inay jiraan xayawaanada badda ku jira iyo waxyeelooyinka kaleba. waxaana jira markab khaas u ah oo xira fiber optic iyo hay'ado iyo shirkado ka shaqeeya ilaalinta iyo badqabka fiilooyinkan. muuqaalkeennii aan uga hadlaynay qaabka uu u shaqeeyo internetka intaas ayuu ku ogyahay.